السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلة كلنتي وعن وناكسن داوضيال لجستيال إذن لهانتينبا waxaan idin wadaa sheeko kale oo markaasi ah oo aad iyo aad u xiiso badan oo markaasi ku saabsan xayawaanada waxay noo dhacaysaa sida tan soo dhawaada asxaabiyay waxay xilli markaasi abaar aad u xoogan ee ka dhacday markaasi duurka waxa isoo raacay markaasi waraabe iyo markaasi bakayle oo ahaa saaxiibo isku dhow waxayna soo aadeen magaalada ama ay soo raaceen wadooyin ka baxda markaasi duurka si ay u soo socdeen ayay waxay ku soo dhaceen nin markaasi beeraley ah beertiisa ninkii ayay markaasi u sheegeen in markaasi abaar xoogan ay jirto baahina ay hayso labadooda uu markaasna shaqo uu siiyo kadibna markaas cunto uu siiyo ninkii beeraleyga ahaa ayaa waxa uu waraabihii ama iyo dabakaylihii siiyay cunno waxaana uu ku yiri cuntadan qaata waxaana ka shaqaysataan beerta oo fala waraabihii iyo bakaylihii ayaa isoo raacay iyagoo ku qanacsan shaqadii loo diray cuntadoodiina soo qaatay waraabihii iyo bakaylihii ayaa u soo dhaqaaqay dhankii iyo markaasi beerta waxayna markaasi gudagaleen in cuntadii la soo siiyay ay kariyaan kadibna markii ay intay sii karaysana ay shaqada sii qabtaan marka beerta ay shaqadiida ay sii qabtaan waraabihii iyo bakaylihii ayaa si aad u shaqeeyay markaasi waxayna ku soo laabteen dhankii cuntadii ayayna u yimaadeen waxayna markaasi bakaylihii uu waraabihii ku yidhi anigu waan soo qabaysanayaa webiga ayaan aadayaa cuntadan adigu noo sii fiiri waana soo laabanayaa bakaylihii ayaa meesha ku haray isagoo qaando qabsaday dherigii marka cuntada ku jirtayna walwalaaqaya waraabihiina aaday dhanka iyo webiga si uu u soo qabaysto ayaa bakaylihii isagoo sidaa iska ahaa ayaaba waraabihii waxa uu sameeyey in markii uu qabaystay in dharka uu iska bedelay dharkii uu watay kadibna uu iska dhigay nuuc kaleeto mise markaasi xayawaan cusub kaleeto oo waraabo ah waxaana uu markaasi usoo dhaqaaqay dhanka iyo markaasi bakaylahaasi markaa cuntada ugu cuno bakaylahana uu markaa kaga bursado waa uu soo orday isagoo ah markaasi waraabaha mid laga cabsanayo bakaylihii ayaa aad u argagaxay kadibna iskaga cararay meeshaasi cuntadiina waxaa halkaasi ku cunay waraabihii bakaylihii ayaa dib ugu soo laabtay meeshii cuntadii lagu kala farxashtay dherigii eber ana meesha yaala isagoo meesha iska jooga oo yaaban ayaa markaasi waraabihii dharkiisii soo gashay sidiisii horeyna iska soo dhigay dibna ugu soo laabtay dhanka iyo bakaylaha waxaana uu arkay bakaylihii oo meesha ku fikiraya oo dharigiina meesha markaasi iska gambisan waxa uu ku yiri aaway cuntadii maxaa dhacay bakaylow ma tihid miya qof markaasi wax lagu dhaafan karo qayla ayuu markaasi u galay bakaylihii ayaa yiri anigu dambi kuma lihi anigu xataa gaaja hayday balse xayawaan markaasi iga soo horbaxay waana ka baqay markaasi anun waan iskaga cararay cuntadiina waa uu cunay diban ugu soo laabtay dharigii eber ahnan arkay waraabiyi aad ayuu u qeylqeeliyay waxaan u muujiyay inuu ay markaasi gaajo hayso balse waa beentiisa oo markaasi beentiisa ay aheedo way matalayay maalinkii labaad sidoo kaleeto ninkii beeraleyda ah ayay u imaadeen si uu cunto u siiyo kadibna ay markaasi beerta ugu shaqeeyaan sidoo kaleeto sidii ayay sameeyeen cuntadoodii ay soo qaateen beertii ay markaasi gudugaleen cuntadoodii dabka ay sii saarteen sidii oo kaleeto markii ay hooshii soo dhameeyeen ayay ku soo laabteen meeshii cuntada ahayd waraabihii ayayna markaasi wuxuu ku fikiray markaan ay ku fikireen in waraabahan shalay cuntadan cunay in markaasi ay dilaan bakaylihii ayaa markaasi waxa uu sameeyay fallaar iyo qaanso wuxuuna markaasi yiri haddii kii shalay uu yimaado aniga yidayo markaasi waraabihiina waa uu arkay in qaansadan iyo waxa loo diyaarinayo waana uu markaasi gartay in markaasi la dili rabo xayawaanka cuntada shalay cunay isagana waa uu og yahay markaasi wuxuu yiri bakaylow idib waxa qaansadii iyo fallaarta awowgii ayaa isoo baray sida loo markaasi habeeyo bakaylihii ayaa isagoo fallaartii iyo wixiisa u habeeyay
damacsanaayeen laga soo qaaday waraabihii ayaana wuxuuna uu ka dhigay falaartii mid aad u dibacsan oo markaasi jileec ah oo haddii la kala jiidaba jabaysa oo khafiif ka dhigay. markaasi ayuuna u dhibay wuxuuna ku yidhi hadduu kaa soo horbaxo waad u fasaxan tahay waxaa waaye bahalkaa dil. waayahayay isdheheen waraabihii ayaa iska aaday qabiiskiisii. bakaylihiina ayaa meeshaasi waxa uu markaasi u jilba jabsaday ama markaasi u fadhiistay uuna sugayay bahalkii shalay cuntada cunay. muddaba kama soo aysan wareegin waaba kana xayawaankii oo markaasi usoo gaagaatamaya ama dhankii markaasi cuntada usoo socda. markii uu arkay bakaylaha ayaa u xanaaqay sare joog inuu u istaagay falaartana gashay aadna u jiiday. marka uu jiidayaba waxaa jabtay qaansadii aad markaasi waa iskaga cararay halkii waayo bahalkan kusoo socdo awood uma lahan inuu iskaga celiyo cuntadana kaga reebto. meeshii ayuu ka baxsaday sida oo kaleeto cuntadiina halkaa ayaa lagu cunay. bakaylihii dib ayuu usoo laabtay cuntadii sidii oo kaleeto meesha laga dhamaystay ayuu imaaday. waraabihiina dib ayuu usoo laabtay. waxaan markaasi arkay in markaasi dheriga uu eber yahay. waraabihii iyo markaasi bakaylihii ayaa sidoo kaleeto doodii dhexmartay isagoo waraabaha muujinayo in gaajo aad weyn u hayso shalayna cunto uusan cunin maantana sidoo kaleeto loogu daray. waraabi isagoo sidaa markaasi u murmayaan ayaa nasiib wanaag ayaa bakaylihii waxay indhihiisa si kadis ay ku arkeen waraabaha ilkihiisa dhexdiisa oo ku jira cuntadii dabka saarneed qayb ka mida ilkii dhexdeeda. bakaylihii ayaa aad u xanaaqay u carooday kadibna yiri ma adiga isagoo niyada ka dhahayo ma adiga qofka markaasi cuntada cunaya aniguna gaajo halkan igu dilayay adigana cunto iska sii cunaysi. waa inoo taalaa oo markaasi waan ogaan doonaa cidda ay tahay adiga iyo haddii kaleeto. bakaylihii ayaa aad u fikiray markaasi waxaana uu markaasi sameeyey qaanso aad iyo aad u adag iyo falaar aad iyo aad u adag oo xoogan. waraabihii ayuu iska jiifa ayuu usoo taagtaagsada. waxa uu arkay waraabiyo aad u hurdayo hurdo meel macaan u socto. waxaanu markaas yiri waa inoo taalaa brito haddii adigu tahay haddii kaleeto. waxaa qalibkiisa ayuu habaystay waxaana uu geliyey dowga hoostiis meel hoostaas ah ayuu geliyey oo cagaarka ayuu ku qariyey. sidii oo kaleeto cuntadoodii waa ay saarteen dabka shaqadiina waa ay qabsadeen. waraabihiina sida caadadii u ahayd waxa uu aaday qabayskii. bakaylihii ayaa meeshaasi markaasi kala soo baxay hubkiisii qaansadiisii iyo falaartiisii iyo wixiisii. markii markaasi uu soo baxsadayba waxa markaasi yimaaday bahalkii ama waraabihii isagoo markaasi iska soo dhigaya nuuc kaleeto markaasi doonaya in cuntadii markaa uu cuno. durbadii bakaylihii ayaa falaartii uu watay inuu u qabsaday aadna u jiiday. waa ay xooganeeday si toos ah ku tuuray. nasiib wanaag waxay waraabihii ka haleeshay falaartii beerka ama wadnaha ayay ka haleeshay. halkaasi ayuuna waraabihii ku dhacay dhulkana ku dhacay waana uu geeriyooday. bakaylihii ayaa kusoo dhawaaday waa kuna soo dugay wuxuuna ku yidhi waa dhuuni ma dhergo oo markaasi iyo wuxuu u raaciyay hadallo kaleeto. bakaylihii ayaa aad isagoo u faraxsan kusoo laabtay cuntadiisii kadibna halkaasi tartiibtiisii ku dhamaystay cuntadii. qisada tan waxa ay markaasi ku taalaa sheekadan ama qisadan waxay ku taalaa buugga fanfoorka. waxaana markaasi dib ugu raaci kartaan buuggaasi fanfoorka buuggiisa Englishka ah iyadoo aad iyo aad u faahfaahsan. halkaasi ayaad markaasi ka daalacan kartaan. waxaan ahay al-ustaad doctor muhandis qoraa caaqil yacqub faysal aadam yacko yare tan iyo kulanto dambe sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.